ومالين فرحات له هولي أنو سعني وجبجبة مجال عريقة أنو نمدنا وجبجبة كدو ووحير إنه هرين أنت أنا عن رجينا يا ما أنت قلني كذا إسكده ما دونتو غيرك آدي أدبان وجوما هذنا قلنا يجا dadkii ugu horeeyay inay ka soo jawaabaan markaan nimidnay ciidankii la qarameeyay mar hore qarameeyeen gaadiidka halkan ay keeneen mar hore intii dhinaydna way soo dhameystireen aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin anoo ku hadlay afka dawladda iyo afka madaxweynahaba waxaan leeyahay jazaakumullah khayr aad iyo aad baad mahadsan tihiin waa mahadnaq waxaan meesha u joognaa in ciidamada qaranku la wareegeen difaaca dalka shanankina waa ka jooga iyo saraakiisha kaleba iyaga la wareegay isaga mas'uulka ah gaadiidkaana isaga la wareegay ciidankii kale isaga la wareegay furihii isaga u dhiibnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in nabadgelyada Ceerigaabo ay soo noqoto wuxuu ciidanka la qarameynay waxay ahayd miftaaxii Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag nabadgelyadiisa si ay soo noqon lahayd in joogto Ceerigaabo in ka maqanba iyo gobolka in joogto in ka maqanba daliya dibad waxaan leenahay ilaahay idankii aanu dhaqaaqno gogoshii way taala madaxweynuhu waa fidiyay annagu waan kala bixiyay waftigaan wada annaguna waan kala bixinay gogoshii marka waxaan leenahay hal lagu soo hirto oo hal iskugu yimaado oo walaalnimadii la soo celiyo oo nabadgelyada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag ka shaqeyno waa gobol baaxad leh waa gobol ilaahay khayraad ku manaystay jiritaanka gobolka iyo horumarkiisu wuxuu ka mid yahay jiritaanka Soomaaliland ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dadkii ku wada noolaa gobolka iyo magaalada Ceerigaabo in ilaahay qalbigooga isku soo dhaweeyo wixii dib dhacayna ay iska ilaawaan waa dhacday intii ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna Allah caafiyo inta kalena waxaan leenahay nabadda Ceerigaabo aan ka wada shaqeyno reerka maanta intii u dambeysay gaadiidkii halkan keenayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadnaqanaa jasaakumullah khayr